hay-adda u diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka Somaliland ayaa 160 qoys oo iskugu jira dad danyar ah ayaa agoomo soo gaarsay deeq raashin ah oo loogu talagalay ka faa'iideysan bisha barakeysan Ramadaan waxaana goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Sool ku-xigeenkiisa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda u diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka qaar ka mid ah garadka magaalada Laascaanood ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay isku duwaha hay-adda Narfor ee gobolka Sool iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Narfor Faisal Jaamac oo xirsi iyo mas'uuliin kale ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool halkan aanu taaganahay waa dugsiga boardingka Laascaanood oo aanu muxuu ahaa dadkii danyarta ah agoomihii 160 ku gudoonsiinay waa isduwaha hay'adda Narfor ee gobolka Sool xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood ayaanu maanta ku suganahay maalintii lixaad ayaa waxa ka socda gobolka Sool raashin qaybintii jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan qorshahani wuxuu ka mid yahay qorshe lagu qoodinayo dadka danyarta ah iyo agoomaha curyaamada dadka barakacayaasha reer miyiga waxaa loogu talagalay bisha Ramadaan ee barakeysan in foodo lagu soo haysa bilintii ay ka gaadho dadku sidoo kale liitaan inay u helaan marka maanta halkan waxaanu ku qaybinay 160 qoys oo isugu jira agoomo iyo danyar mahadnaqayna ilaahay waa mahadle hay'adda kahortaga masiibooyinka iyo aafooyinka iyo hay'adii ku deeqday intaba iyo maamulkii qoladii waday waa raashinka ay soo gaarsiiyeen bisha Ramadaan dadka danyarta iyo agoomaha waxaanu leenahay wacyi adag oo coronavirus uu dalka ka jiro oo dhaqaalihii hoos u dhacay baa lagu jiraa iskoolka boardingka weeye Laascaanood halkan maanta waxa lagu qaybinayaa raashin laba qaybood ah raashinkaas oo danyarta gobolka iyo agoomaha labada qaybood weeye iyadoo gobolka raashin bixintiisa in badan dhow soconaysay ilaa 7 ay soconaysay maanta goobtii ugu dambeysay weeye waxaa maanta oo biri Ramadaan dhalanayso waxa lagu bixiyay raashinkii Sacuudiga ka yimi horta bal marka ugu horeysa ilaahay baan u mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin aan cudurka inoo keenin maxay talka waxa lagu qaybiyay 160 qoys baa lagu qaybiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka jilicsanaa masaakiinta baan ku dhintay awood karta waa la gaarsiiyay maxay taan qolada hay'adana baan ku lagu mahad celinaynaa qoladii soo dhiibtay insha Allah khayr ilaahay ka saabal mariyo insha Allah bilmiga ilaahay wax gaarsiiyo laakiin si sharaf leh karaamo leh ayaa lagu qaybiyay waxaan mahad celinayaa hay'adda gobolka Sool u keentay raashinka deeqda ee agoomo iyo dad masaakiin iyo dad waayeel isku jira waxaan kale u mahad celinayaa gobolka Somaliland sida loo socotaanba muddadan 5 maalmood u dambeysay hay'adda Narfor ee diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxa gobolka Sool ku qaybisay 2500 oo qoys oo raashin ah oo dadka danyarta ah ee baahan ay hayaan runtii aad baan uga mahad celinahay hay'adda hawsha ay ka soo shaqeysay ee muhiimka ah muddo dheer 8 bilood ka hor muddo ku dhow geesta kale hay-adda u diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka ayaa gaadhsay deegaanada Goori Arcadeeye Dar es Salaam Gambare Tukaraq deeq raashin oo loogu talagalay dadka deegaankaasi waxaana soo dhaweeyay dadka deegaankaasi Somaliland Narfor hay'adda Narfor Sacuudiga oo soo bixiyay raashinka kan ugu soo deeqay dadka danyarta ama tabaalaysan ee gobolada Somaliland ku fiirsan oo ku soo wareejiyay jamhuuriyadda Somaliland sida hay'adda Narfor maanta degmada Arcadeeye aanu dhex taaganahay ilaahay waxa la hortagnaa inay muslimiinta ay soo gaarsiiyeen danyarta 190 qoys ay soo gaarsiiyeen raashinkii uu keenay Sacuudigu oo ah 180 yogooriya iyo 150 guumaysa waan kala wareegay hay'adda Narfor oo aad aragtaan oo la saaran yahay ama gaariga gudoomiye ku-xigeenka hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka Somaliland Faisal Jaamac oo xirsi ayaa sheegay in deeqdan ay noqon doonto intii ugu dambeysay soo gaadhay deegaanka waxaanu maanta joognaa degmada Goori oo aanu ku qaybinayno raashinkii aynu qaybintiisa baryaha bawadnay xilliga oo xilli Ramadaanti ay soo dhowdahay ah duruufaha iyo xaaladuhuna iska adag yihiin xukuumadda Somaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ku tallaabsatay oo ay go'aansatay inay dadkeeda u gaarsiiso raashin 30 qoys min daraf ilaa degmo وفرحان محمد عيديد بولشة TV Laascaanood